daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka iyaga aad inooga barateen hadahayo kale caawana waxaan ku qaadaa dhigi doonaa 10 atariisho ama actress ee dalkaasi India ama Bollywoodka ugu lacagta badan ee ka bogasho wacan. daawadayaal ku soo dhawaada 10 atariisho ee ugu lacagta badan ee Bollywoodka. kaalinta tobnaad Priyanka Chopra waxay haysataa lacag gaaraysa 8 milyan. waxay ka mid tahay atariishooyinka ugu quruxda badan waxayna ku guuleysatay quruxda India sanadku markuu ahaa 2000 oo gow ah. kaalinta sagaalaad Malaika Sherwata waxay haysataa lacag gaaraysa 10 milyan oo dollarka Mareykanka. waxay ka mid tahay atariishooyinka ugu dhudhuuban ama ugu isnooleysan xagga muuqaalka ama jirka ee Bollywoodka. kaalinta sideedaad Karishma Kapoor Nadwed lacag gaaraysa 12 milyan oo dollar waxay ka mid tahay atariishooyinkii 1994 ilaa 2009kii filimaanta soo jilay. sida la ajligeedna waxay ka mid tahay kuwa ugu lacagta badan. kaalinta toddobaad Ileana D'Cruz waxay haysataa lacag gaaraysa 14 milyan oo dollar waxa ay ka mid tahay jilayaasha ugu caansan Bollywoodka ilaa haatanna waxay wadaa filimaanta loo yaqaano musalsalada ee dalkaasi Hindiya lagu daawashada badan yahay. kaalinta sideedaad Kajal Devgan waxay haysataa lacag gaaraysa 18 milyan oo dollar. waa xaaska Ajay Devgan waxa ay ku jirtay fanka muddo gaaraysa dhowr iyo 20 sano waana qofta kaliya ee ilaa haatan fanka ka harin. kaalinta shanaad Amrita Roy waxay haysataa lacag gaaraysa 20 milyan. waa gabar aad u dayar fankana ku soo biirtay kuna guuleysatay jaa-isooyin aad u badan filimaanta ay dhigtay waana qof soo baxaysa. kaalinta afaraad waxaa galay Deepika Padukone oo haysata lacag gaaraysa 20 milyan. qoftan oo noqotay atariisho Bollywood to Hollywood waxayna dhijisay filinkeedii ugu dambeeyay ee Triple X ee la dhigtay Vin Diesel Samuel L. Jackson. kaalinta saddexaad waxaa galay Preity Zinta oo haysata lacag gaaraysa 30 milyan oo ah qofta iskale TV-yada ugu caansan ee dalkaasi Hindiya waxayna shirkad la tahay Sanjay Dutt. waxaa ku xigta kaalinta labaadna galay Amisha Patel oo haysata lacag gaaraysa 30 milyan oo dollarka Mareykanka ah. waxay soo jishay filimaan gaaraya ilaa 50 filin oo kulligoodba wada ahaa super hit ama blockbuster. kaalinta koowaadna waxaa galay Aishwarya Rai Bachchan oo haysata lacag gaaraysa 35 milyan oo dollar. waxaa qaba Abhishek Bachchan waana wiilka Amitabh Bachchan atooraha ugu caansan ama ugu magaca dheer dalkaasi India. daawadayaal intaas ayaan barnaamijka ku soo afmeerinaa. waxaad nagala socoteen Saxafi Channel. ha hilmaameen inaad tirahdeen subscribe. annagoo isku duuban oo aabbaha Saxafi Channelna waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo kulanti dambe oo xiiso leh.